kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa diyaar u ah in ay bixiso lacagaha lagu burburin karo qandaraaskiisa xidiga Castos Manolas oo dhan 32 milyan oo pound si uu xal ugu noqdo daafaca liita ee kooxdaasi. daafaca kooxda Roma ayaa qirtay in uu jeclaan lahaa in uu u ciyaaro koox ka tirsan Premier League xilli la xiriirinayay xagaagii aynu ka soo gudubnay. Ole Gunnar Solskjaer ayaa xiiseynaya in uu xoojiyo daaficiisa. 27 jirka qalbada dhexe ee daafaca kaga ciyaara kooxda Roma ayaana ah iminka targetkiisa koowaad. wararka ka imaanaya dalkaas Talyaaniga ayaa ka dhawaajinaya in uu wadahadalo kula jiro goor horeba koox ka dhisan Premier League dalkaas Ingiriiska laacibkan u dhashay dalka Greega. United ayaana diyaar u ah sida ay wararku sheegayaan in ay dhaqan geliso sharciga lagu iibsan karo qandaraaskiisa, laakiin sharcigan ayaa noqonaya kaliya mid dhaqan gala marka la gaaro xagaaga soo aadan. Castos Manolas ayaa ku soo biiray kooxda Roma sanadii 2014 xilli 10 milyan oo pound ay kaga soo iibsadeen kooxda Olympiacos ee ka dhisan dalkaas Greega. wixii markaasi ka dambeeyana waxa uu noqday mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalada Yurub. Ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso.